Taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Generaal Oduwa Yuusuf Raage ayaa si kulul kaga hadlay wararka sheegaya in ciidamada dowladda ay ka dambeeyeen weerarkii dhalinyarada dhaqaatiirta ah lagu dilay ee dhawaantani ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isaga oo shacabka Soomaaliyeed u cadeeyay in aysan ciidamada dowladda wax dambi ah aysan ku lahayn weerarkaasi. Mar uu warbaahinta xilli dambe oo xalay uu la hadlayay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim. shirkeena jaraa'id caawa wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii aad iyo aad u murugo badneeday oo ka dhacday deegaanka Gololey ee ka tirsan degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe. dhacdadaas oo ahayd runtii dhacdo aad iyo aad u tiiranya badan. waxaan rabaa marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qoyskii ay ka dhinteen marxuumiintaasu inaan uga tacsiyeeyo oo niraado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan. waxaan rabaa inta kadib waxa jiray dad ku eedeynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka dambeeyeen arrintaas. waxaan rabaa marka dadkaas inaan iraado runtii waa dad aan dhihi karno waxay u eedeegayeen cadawga. falalka noocaasuna ma ahan falal ka suurtagal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bulshada way u adeegaan laakiin bulshada ma dilaan. taas marka mar haddii ay yihiin kuwii bulshada u adeegayay, haddii ay yihiin kuwii dhididkooda iyo dhiigooda u daadinayay bulshada Soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaaday qoysaskoodii, kama suurta gasho qayb kamida bulshada inay dhibaateeyaan. arrinta marka waxaan dhihi karnaa dadka falalka noocaas ku kacay waa dad u adeegaya cadawga. bulshada Soomaaliyeedna runtii waa ay garan karaan falalka noocaas oo cidda ay ka suurta galaan iyo cidda sameynaysa. mana ahan runtii wax uguba oo hadda muxuu ahaa ii sheegay bulshada Soomaaliyeed ugub ku ah cadawga ummadda Soomaaliyeed. shakhsiyaad oo in qaado ama wado oo si micna daraa ku dilo muddo dheer oo soo waday. waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu si micna daraa dhiigooda ku daadi jiriyay, wax dheefkoodana ku qaada jiriyay. falkaas marka waxaan dhihi karnaa waxa ka dambeeya dadkan caynkaas ah, waxa ka dambeeya cadawga ummadda Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo inaysan wax lug iyo reed aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah. maahan markii ugu horeysay oo weerar ciidan oo kala dusha lagaga tuuro ciidamada militariga Soomaaliya. Ibrahim Maxamed Xasan, Ibrahim Jamuni, raadiyaha telefishinka caalamiga Hami, Beledweyne.